kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa axad taariikhduna waa 19 abriil qodobo muhiim ah oo dhammaantood ku saabsan wixii kasoo kordhay bariga dhexe ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa haddaba barnaamijka waxaynu kusoo gudbinaynaa arrimo muhiim ah oo ku saabsan wixii dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba waxaynu ku bilaabaynaa hadallo ay isdhaafsadeen Trump iyo madaxweynaha Iran. Trump marka hore soo booday wuxuu ka hadlay dhowr arrimood. Midda koobaad waxay sheegeen aqalka cad Trump inaanu aqbali doonin heshiis aan dalkiisu dan ugu jirin. Heshiis aan dalkiisu dan ugu jirin ma aqbalayeen ninka la yiraahdo Trump. Trump wuxuu sidoo kale ka hadlay inay wafdigoodu aadi doonaan Pakistan oo ay ogol yihiin in heshiis halkaa lagu gaaro. Markii hore wafdiga waxaa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenkiisa J.D. Vance ninka la yiraahdo. Hadda wuxuu yiri Trump ma hogaamin doono wafdiga ninka la yiraahdo Vance madaxweyne ku-xigeenkiisa sabab amni darteed. hay-adaha ilaaliya amniga madaxda Mareykanka ayaa waxay sheegeen inaanu tagin madaxweyne ku-xigeenka Pakistan hadduu tago khatar u gali karaa leeyahay waa la qaramsanaa macnaha waa la cunayaa sababa amni dartood isku tagin. Trump marka wuxuu yiri wafdiga waxaa loo hogaamin doonaa Witkoff iyo Kushner. Witkoff waa ergeygiisa, Kushner kuna waa wiilku sodoga u yahay. Labadaas awalba wada hadaladii hore way ku jireen laakiin madaxweyne ku-xigeenka hogaaminay. Marka hadda waxa la yiri madaxweyne ku-xigeenku ma tagi doono saasay marka arintu noqonaysaa. Haddaba marka arintu soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay aqalka cad ee Mareykanku waxa yiraahdeen Trump ma aqbali doono heshiis aan u adeegaynin maslaxada. wakaalada wararka ee Reuters aqalka cad waxay tiri madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay heshiis kasta oo la gaaro oo aan u adeegaynin Mareykanka iyo maslaxadiisa kuma jirno. wuxuu leeyahay wax anaga aan dan noogu jirin heshiiska ma noqonayo. marka Iran wax aan iyadu dan ugu jirin may aqbalaysaa maya waa cadaalad waa saas hadii laga xoog badiday gacmaha taagtay waa gooni laakiin Iran wali waxay aaminsan tahay inay iyagu yihiin kuwa dagaalka ku guuleystay oo nooka iska dhiciyeen wax kastana ma shaqeynay leeyihiin awoodooda inay barnaamijka la soo baxeen. haddaba markaan ay tusoo madaxweynaha Iran ayaa isaguna u jawaabay wuxuu leeyahay madaxweynaha Iran wuxuu yiri annagu dad dagaal doonaya mani laakiin waxa aynu dalbanayno waa xuquuqdeena sharciga xuquuqda shacabka Iran ay leeyihiin cidna uga tanaazuleen danaheena iyo xuquuqdeena cidna uga tanaazuleen male. kaasna muxuu yiri waxaan anagu dan noogu jirin ma qaadanayno kana muxuu leeyahay waxaan anaga iyo shacabkeena dan noogu jirin oo xuquuqdooda ma qaadanayno. waxa ka soo baxa barka beeshaas wax ka soo baxa bale nin walba positionkiisa haduu ku dhago wax soo baxaya oo natiijo ah oo meesha ka jira ma jiraan. marka maxaa dhacay marka saacadii la soo dhaafay Pakistan ilaa maantay ilaa xalay telefoonay wadaan in kulanka la isugu yimaado wax un lagu heshiyo. war xaaladda waa xumaatay yiraahdeen marin biyoodkii waa si xirmay baasha qoryaha la isku cabaystay khatar lagu jira dagaalkan hal la joojiyo dagaalkan cidina dan ugu ma jiro. Pakistan marka waa la riixaya dawladii carabta oo dhan warriba ka sukeen wax uuna ku heshiiyeen xataa xabadoojitaa kordhiyeen marbiyoodkan ha fureen waxa naftaana hays adduunka oo dhan qeylnay shidaalkii waa qaaliyo bahad gaaskii waa qaaliyo wax kasta cirkaasay galeen waa la yaabay meel wax laga bilaabo male. marka Pakistan Mareykankii wuxuu yiri diyaar ah isagu waa diyaar dagaalkan waxaan inuu iska soo abjaro raba. laba diyaaradood oo Mareykanka leeyahay waaba tageen meesha maxay ahayd Pakistan wafdiyo wadaan
warbaxa diyaaradahan wafdiya wadnaa waa anaga diyaara u nahay wada hadalka intii saxaabad joojinta dhammaan maaragtay diyaara nahay inaan wada hadal la galno hadday diidaan wada hadalka Iiraan de markaas dukum daakuma ka dhigaynaa Iiraan ay adinkuma soo socotiin Iiraan marka waxay tiri anagu meeshaas wax natiijo ka soo baxa male nimankii maalin hore aan la shirnay Soomaaliya nimankan waxayna hana loo sameeyo warmiya see uu sameeynaa waxa ay rabaan kaliya ma meesha loo tagaa waa inay nimankan u aqbalaan inay wax ogolaadaan tanaasulaan xuquuqda sharciga Iiraan shacabkeeda waa inay siiyaan laakiin waxaad samaysan kartaan male sida adduunka u nool yahay u noolaanayna waxna la ka hor istaagi karo male marka maanta maxaa dhacay wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan telefoonka wuxuu u diray ninkii wasiirka arrimaha dibadda Iiraan warniyo shirka imaada war Mareykankii waa joogaaba wafdiga soo dirsan kuwii waa kaliya dhimanay jaa wafdi hordhaca jooga laba diyaaradood ee meesha imaada muxuu u diray ha isla hadleeno yiri ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo madaxweynaha Iiraan labadaas hawsha go'aanka gaaray maxana Iiraan way ka lug jiidaysaa ugu wada hadalkaasi waxaas mar cidda wada hadalka aan rabin oo jugta la iska geliya rabto waa Iiraan Mareykankii jaa wuu tagay laba diyaaradood u geeyay daaragta warbixinta waa yaabisaan haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay arikaas Al Jazeera waxay leedahay Pakistan iyo Iiraan ayaa telefoonada iskula xiriiraya si markaa looga wada hadlo ka hor kulanka labaad ee wada hadallada dhexmari doona Mareykanka iyo Iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka Iiraan waxayna isku waafaqeen in ay wada hadalkooda sugaan ra'iisul wasaare Sharif oo ah ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo Pezeshkian oo ah madaxweynaha wadanka Iiraan inay iyagu markaa go'aanka wada gaari doonaan way marka Iiraan mujeda waa ka soo qayb galeynaa iyo diyaaranahay midna ma dhahayaan marka uu kooda hadalkaas suugaynaa dheer marka midaan aan aragno waxa leeyahay hadda Al Jazeera leeyahay waxa soo gaaray laba diyaaradood oo Mareykanku leeyahay Islamabad caasimadda Pakistan waxay wadaan sida warbaahinta Pakistan ay sheegtay waxa la socda koox u gogol xaaraysa wareegga labaad wada hadallada wafdiga ka qayb galaya Mareykanka warbaahinta Pakistan ay sheegaysa laba diyaaradood Mareykan waa joogaan niman Mareykan la socda oo u gogol xaar u ah oo shirka diyaar u nahay leh talaadada meelahaas la qaban doonaa sida ay Mareykan ku rabaan hawshaas Trump waa mid uu ka hadlay wuxuu leeyahay diyaar nahay wafdigeena laakiin madaxweyne ku xigeenka ma hogaaminayo nimankaas kale way tagayaan meesha ayagoo hawshooda waa socotaa meesha waa tagaynaa ilaa heshiiska waa rabnaa nimanka heshiiska diidan yaa waa Iiraan waxa leedahay nimanka wax laga faa'iido male meesha tagistooda nimankan wax kale ku rooyihiin male inaan isjukayno nagti iska saarno oo qola laga jabsado ma ahna war kale ma jireeyaan ninka dekadaha Iiraan lama imaan kara leh oo banaankaas maraakiibta ku baaranay maxaa way nabadu rabay leey nabadda ma manoo sheegi kartay nabad maxay xabad joojintiyo saan ku jibiye leey daan socod waay leey dekadaha Iiraan lama tagi karo maxay aw xabad joojinti aw heshiiska aan tagayna maxay wardhikan heshiis barabay dheer meeshan waxa rabaan ha keenay marka hadda xaajadu halkaas joogtaa wararkaas halkaas mareen waa arkayna marka Iiraan ilaa caaw haday aqbasho ka qaybgalka shirka iyo in kale waxaan maraynaa marka qaybtii Hormuz ayaan wararkii ka soo kordhay aanu bal eegaynaa warbaahinta waxay leeyihiin maanta oo axada hal markab oo ka gudbay xataa male ma lagu shaqajaamin xataa shalay markii maraakiibta rasaas la dhacay doomo waxay la yimaadeen aan caadi ahayn oo dheereeya oo qoriyo ku rakiban yihiin Iiraaniyiin markii maraakiibtii la xabaday wixii markaba oo dhan meelihii ka yimaadeen ku laabtay doomahaas la ku feesteena meesha Mareykankina waa ka cararay barnaamijka hore adii sheegay eeriyadii waxbaan ka kontroola u lahaa waa ka tagay hal mar hadii maraakiibtan meesha ay kala dhuumato asagii ayaga isku soo haraa uu ogyahay marka meesha marka ma joogaya may waa ka carareen meesha
marka meesha waa haawanaysaa iiraan basa ku faystaanaysaa ay tusoo wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray wargeyska maraykanka ee la yidhaahdo Bloomberg ayaa maanta qoray inaanay jirin wax doon ah oo ka gudbay Hormuz maanta oo Axada Bloomberg waxay sheegtay bayaanaad iyo warar rasmi ah oo ay heshay in maanta oo Axada aanay jirin wax markaba oo ka gudbay ilaa 13 markab oo kuwa waaweyn ee shidaalka qaada oo rabay inay gudbaan ayaa dib isaga laabtay goobihii ay ka yimaadeen khaliijka galinkii dambe ee shalay sabtida meeshaas ka aaday nin walba dekadiisu isaga laabtay meel la mara male isbaaraha taala meesha ninkii xoog qaba kaalaha soo maray taagata Iiraan adduunka ugu xoog badanahay iyo fogfogay baratay meesha la soo maray taagat haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa arinta ku saabsan wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay oo gordhow war soo saaray wuxuu leeyahay khiyaar kasta miisku noo saaray hadday nabad tahay iyo hadday colaad tahay labadaba haddii ay diidaan Iiraaniyiinta inay shirkan yimaadaan oo heshiis saxiixaan waxaynu baabi'in doonaa sida ugu fudud goobahooda muhiimka oo dhan ayaanu cagta marinaynaa ninka hadalkaa laga soo xigtay oo dhahaya waa wakiilka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay waa war dawladda Mareykanka ka soo baxay waa macnaheeda sidaas uu u dhigan yahay ciidamada Mareykanka waxay sheegeen inay dawriyaad ku sameeyaan oo ilaalo kore ay ku sameeyaan iyagoo diyaarada isticmaalaya maraakiibta ay isleeyihiin dekadaha Iiraan ama ay tagaan marka ilaala ku ayna cunaqabatayntii way noo saaran tahay ay leeyihiin marka wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirnay barnaamijkaygii labaad waa naga intaa asxaabay like gareeya oo share gareeya barnaamijka haddaad cusubtahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-gana follow gareey inta aan mar kale barnaamijka lamid ah ku kulmayno nabadgelyo